bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan dadkan dhageysanaya habeen idin tahay habeen wanaagsan haday maalin idin tahayna maalin wanaagsan waxaan idin soo gudbinaynaa faa'iidada naasnuujinta faa'iido aad u weyn ayaa ku jirta ilaahayna quraankiisa waxa uu ku sheegay laba jeer waxa uu markaasi u bayaaniyay in muhiim ay tahay naasnuujinta ay markaasi u nuujinayaan hooyada dhashay ilmaha waxaan isku daynaa inaan idin soo koobno faa'iidada naasnuujinta ay u leedahay cunuga iyo waliba hooyadiba waxaan ugu horeyn aan qadadhigaynaa faa'iidada ay u leedahay hooyada oo baahan diyaarin dhaqaale ahaan waa cuntada adduunka ugu nadiifsan ama ugu raqiisan waa cunto waqti walba diyaar ah habeen maalin iyo waliba meel walba aad joogtid waxay saacidaa minka inuu xirmo oo dhiigga istaago markaasi haweenka ay dhalaan xiriirka hooyada iyo waliba cunug ayuu siyaadiyaa emotional certification wuxuuna yareeyaa kansarka ku dhaca nasaha haweenka wuxuuna dheereeyaa ilmahaga waqtiga markaasi u kala dhexeeya birth spacing taasoo ka qayb qaadata family plan waxaan markaan haddana idiin soo gudbinayaa faa'iidada ay u leedahay cunuga waa cunto dabiici ah oo markaasi isku dheelitiran lagana heli karo wax kasta oo nafaqo ah oo markaasi u baahan yahay cunugaaga waxa ku jira lactose badan kaasoo keena galactolipids lagu daray fatty acids kuwaasoo markaasi ka qayb qaata korniinka maskaxda daraasadu markaasi cusub oo la sameeyay waxa ay bayaanisay oo sheegtay in ilmaha la nuujiyay ay ka maskax badan yihiin ama ay ka sareeyaan ilmaha aan la nuujinin taana waxay markaasi ka dhigan tahay in muhiim u tahay ilmaha in 2 sano naas markaasi hooyada ay siiso waxa kaloo caanaha hooyada ku jira cholesterol kaasoo markaasi ka qayb qaadata xubin saarida neerfaha iyo waliba ka hortaga inuu dhiigga fadhiisto xididada borotiinka ku jira caanaha hooyada waa borotiinada ugu sahlan ee caloosha markaasi ay shiidi karto phosphate-ka ku yar caanaha hooyada waxay ka hortagtaa inuu markaasi calcium ka yaraado kaas oo aad ugu muhiimsan ilmaha waqti walba diyaar waa cuntada mar walba markaasi u baahato aad heli karto waa fresh mar walba uma baahna in la markaasi lagu daro waa xifdiya heerkulkiisa waa heer sare mana qaboobo mana kululaado caloosha wax dhib ah uma keenaan si sahlan ayaa lagu shiidaa si sahlanna xiidmaha loogu dhuuqa taasoo markaasi ka saacida cunuga inuu si fiican u hurdo si fiican markaasi u koro caadifada ayay siyaadisaa cunuga hooyadiisa kama fogaanayo iyada korankiisa markaasi ku dadaalayso caanaha hooyada infectionka way ka hortagaan noocyadiisa kala duwan ilmaha hooyadooda naasnuujinta waxay markaasi ka badbaadaan cudurka lafaha lafaqlooca markaasi loo yaqaano rickets maxaa yeelay caanaha hooyada waxaa ku badan vitamin D iyo waliba calcium phosphate markaasi isku dheelitiraan caanaha hooyada waxay ka hortagaan in ilmaha ay ku dhacdo dhiig yari caanaha hooyada waxaa ku jira 2 jeer ka badan inta caanaha lo'da markaasi ay ku jirto waana faa'iido markaasi aad u muhiim ah caanaha hooyada waxaa ku jira waxyaabo kaalmeeya ama saacida in birta si sahlan looga dhuuqo xiidmaha birta ku jirta caanaha hooyada saxarada ma soo raacdo cagsiga kan lo'da ilmaha la nuujiyay ilkahooda way markaasi ka koreen fiican yihiin ilmaha aan la naaska la nuujinin caanaha hooyada looga baqi mayo inay markaasi uraan amaba sumubaan faa'iido muhiim ay markaasi u leedahay naasnuujinta haddaba haddaad ka heshay ama wax badan ka faa'iiday fadlan subscribe si aad u haragto ama si aad u noqoto qof ugu horeeya markaasi arka barnaamijyada ka caanka media group markaasi loo soo dhigo sidoo kale share like comment